waxaan ka soo dhaxalayaa suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir halkan waxa goordhow ka kacay dab xoogan oo qabsaday goobo ganacsi oo ku yaala gudaha suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir gaar ahaan agagaarka masjidka Marwaas ee degmada Xamarweyne wararka ayaa xaqiijinaya in halkan dabkii ka kacay uu ka bilowday goobo ganacsi isla markaana uu ku fiday dhismayaal hor leh oo ku yaala halkan waxaa soconaya gurbad xoogan oo ku aadan qaabkii loo damin lahaa dabkan iyadoo ilaa hadda aan lagu guuleysan daminta dabkan waxaana xusid mudan in ganacsatada iyo dadka halkan goobaha ganacsi ku lahaa ay la baxayaan adeegyadii alaabihii kale halkan u yaalay waxaana maanta oo jumco ahayd xirnaa inta badan suuqa waxaana dadku ay ku soo baraarugeen mar qura markii dabka uu kacay in halkan ay yimaadaan isla markaana hadda wixii u ceensami karo goobaha weli dabku uusan ku faafin ganacsatadu ay ka ceensadaan wixii halkan u yaalay ganacsi ahaa xaaladdu aad bay u adag tahay maadaama dhismayaal hor leh iyo goobo cusub weli dabka uu ku sii fidayo waxaana soconaya gurmad kala duwan oo dadka halkan jooga ee bulshada qaybada kala duwan ay sameynayaan wixii ka soo kordha kala soco telefishinka Universal waa Maxamed Ile Universal TV Xamarweyne Brasil